والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد. walaalayaal, sidaynu dareemayno bishii ramadaan waqti kooban baa ka dhiman. midkaynu isku baraarujinayna ayaamahan soo socda waxa weeye al-isticdaadu liramadaan. bishaa fursadda qaaliga ah ee qiimaha badan sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayna ramadaan. waxaynu ogsoonnahay tusaalayaasha adduunyada markaynu soo qaadanno dadka ganacsiga ka shaqeeya marka la yidhaahdo halkaa carwaa ka jirta ama alaab jaban baa lagu soo bandhigaya oo aan sanadka oo dhan ku soo maraynin, nin waliba wuxuu u diyaar garoobaa siduu alaabtaa jaban u soo iibsan lahaa, talagalna uu sameeyaa. hadday waddanka dhexdiisa tahay iyo haddii ay meel kale tahayba, maruu fiirsa raadsado, maruu lacagtii uu ku soo iibsan lahaa baadi doono, maruu wakhtiga waraysto, wax badan buu isku hagaajistaa, weliba wuu ka sii horeeyaa. taasi waxay sheegaysaa ku dadaalidda adduunyada iyo qofkaasi fursadda alaabtu jaban tahay siduu uga faa'iidaysan lahaa. midhkaynu ka warramaynaa waa midh caynkaas oo kale ahoo fursaddani waa fursad qaaliya oo aada u qiimo badan oo cimriga qofku si dhaqsaa hore ugu kacayo, barakoobayo. markaa siday dadku ugu kala diyaar garoobaan ayay uga kala faa'iidaysi badanayaan bishaa. ilaa 10 siyood ayaynu baraarujin lahayn sida looga faa'iidaysanayo ramadaan. 10 kan arrimoodoo hore aynu wadnay laakiin laga yaabo inay daciif inaga ahaayeen baynu xoojinaynaa. midda horeysaa waxa weeye anniyatu saadiqa, niyad wanaagsan inay jirto oo markaynu bishan kusii jahaysannahay ayaamo yarina ay ka hadheen niyaddaadu inay wanaagsantay. ilaahu ramadaan haddaad i gaadhsiiso waxaan samayn doonaa wixii la ifaray oo dhan, inta aan kari karaan fulin. niyada wanaagsanna qofka haddii aanu xataa camalkii samayninba ilaahay wuu qoraa. qoladii beder lasoo qabta ee maxaabiista ahaabaa ilaahay waxau ihi in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukhida minkum. dadkiinaa la qabqabtee maanta cabanaya, hadduu ilaahay qalbigiinna ku ogaado khayr, wixii laydinka qaaday wax ka fiican baaba laydinsii doonaa. ilaahay waa qalbi jire. muuminiinta markuu ilaahay ammaanayey baycatu ridwaan qalbigoodu ku ammaanay, laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba. qalbigoodaa wanaagsanaa buu ilaahay, qalbigoodaasaa ilaahay waxa ay heleen uu ku siiyey. marka in qalbigaagu wanaagsan yaho niyad fiican oo go-aan leh oo aada isleedahay khayrka aada qabqabatid intaad kari karto inaad la soo diyaar garowdo, ilaahay baaba kugu garabgelaya abaalmarin weyn oo wanaagsanna waad ku helaysa. waxa labaad aynu ku diyaar garoobaynaa alisticdaad bitacarufi cala allah biasmaa'ih wa sifaatih wa aayaatih, inaynu ilaahay aada u sii garanno subxaana wa tacaala, sii kordhino garashadiisa. garashada ilaahay addoonkuu garanayo waxaa ka dhalanaya inuu ka edebsado. haddaanu ilaahay addoonku garanaynina kama edebsado. ilaahay saad u baranaysaa waxa weeye asmaa u leeyahy, magacyaal iyo sifaat. macnahooda akhri: alcaliim, alsamiic, albasiir, alqaadir, almelik, alquduus. magacyadaa markaad akhrido mid walba nuxur buu leeyahy aad dhadhaminayso, oo ilaahay siduu kuu eegayay, siduu kuula joogay iyo siduu kuu ilaalinayay iyo siduu kuu maamulayay. aayaadka qur-aankiina waa saas oo kale. awoodaha ilaahay ee adiga kaa muuqanaya, caalamkan ka muuqanaya markaad akhridana ilaahay waad arkaysa, ilaahayna waad baranaysa. markaad intaasoo dhan isu geyso ee aad ku qanacdo ilaahay inuu joogo oo uu kula joogo adiga, oo uu jiro, oo uu ku eegayo, oo uu ku maqlayo, oo uu ku arkayo oo adigu aanad arkaynin. intaa markaad isu geyso waxaa ka dhalanaya, haddaad intaa ku qanacdo, inaad ka edebsato ilaahay subxaana wa tacaala. barashada aad ilaahay baratay waxay keenaysaa inaad ka edebsato. oo waxaynu naqaanaa ninka madaxda maalan ee qofku u shaqaynayo
markuu la joogo iyo markuu ka maqan yahay bani aadamku isku si uma shaqeeyaan intaa uu la joogo ee ishiisu ay arkayso wuu iska dhisaa wuu gebgebleeyaa kolba dhan buu cararaa wixii laga doonayo ku dadaalaa laakiin markuu qofkii ka tago sidii hore ma noqdo haddaba ilaahay wuxuu kaga duwan yahay addoomihiisa kani hadduu kula joogo markii hore iska dhisaysay ilaahay isagu marnaba kaama tegayo wa huwa macakum mar walba wuu idin weheliyaa ilaahay wuxuu kaga duwan yahay cid kale ood iska eegi lahayd oo makhluuq ahba weliba qalbigaagu eegaya qalbigaaga ayuu eegayaa oo aan cid kale arkaynin rabbi subxaanahu wa tacaala iska daa qowlkaaga iyo ficilkaaga laakiin qalbigaagu akhriyaya muuqaalkaaga iyo maqaalkaaga iyo macnawiyaadkaaga waa isugu mid ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofku heerkaa uu gaadho atacaruf cala allahi baa la ilaahay buu bartay waxaa markaa uu yeelanayaa askari isaga ilaaliya oo garashadaa ilaahay uu gartaya oo damiirkiisiioo toosaya naftiisii waxay gaadhaysaa in lagu tilmaamo allawaama nafta qofka canaanata nafina waa alamaara qofkay xumaanta faraysaayo waa nafta aan ilaahay arkayn ama aan ilaahay baranin nafina waa allawaama qofkiiba ilaahay addoonkiibay canaananaysaayo markuu isilaa xaaraanta same oo sawkan ilaahay kula joogay ku eegaya waajibka markuu is idhaahdo ka tag oo sawkan ilaahay ku wehelinaya ee ku arkaya markuu is idhaahdo cibaadada ka sii jeesa oo soo adigan ilaahay hortaagan atacaruf cala allah waxay kordhisaa nolosha qofka macnay u samaysaa addoon dhababay ka dhigtaa inaynu arrintaa kordhinaano waa laga maarmaan waxyaabaha aynu ku isticdaadayno ama ku diyaar garoobayno waxaa ka mid a alisticdaad biitibaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam maxabati inaynu nebiga ku dayano aynu jeclaano dabeedna aad siiradiisa akhrida markay ramadaan soo galayso muxuu samayn jiray siduu u diyaarin jiray naftiisa ehelkiisa ummaddiisa haddaad cid jeceshahayna macnaheedu waxa wey inaad ku dayato qofka aada jeceshahay waxaa run ka dhigaya jacaylkiisa inaad ku dayato waxaynu ku diyaar garoobaynaa afraad almuxaasaba inaynu nafteenna xisaabinno qofka bani aadamkii markuu doonayo inuu guulaysto dhaqaalihiisa horumarkiisa cid ay wada xidhiidhayaan dowlad shacab wuxuu isku dayaa inuu aqoon u yeesho waxa mumtalakaadkiisa iyo maal wuxuu leeyahay xisaab xidh buu sii sameeyaayoo dadku la tashan karaabuu ayuu la tashanayaayoo wax diyaaru la yimaadaa kii kalena dee isagoo fashilan buu tegayaa cidduu la xisaabtamaya cidduu la kulmayaba meeluu marayaba aan garanayn idan si aynu guul u gaadhno aakhiro ilaahay hortiisa waa inuu qofku naftiisa intanuu joogo adduunyada xisaabiya khayrka waktiga khayrka markaad kusii socotana xisaabtii sii kordhisaa sirta nolosha saxaabadii nabiga ka fahmay maqaaladahoodii mid qaar qaalaya bay ahaayeen oo dhaxal galay waxyiga u egaaday cumar binu khadaab wuxuu lahaa naftiina xisaabiya intaan la idin xisaabinin camalkiina miisaama inta aan la idin miisaamin xasanulbasri waxa uu lahaa raximahu llah inamaa khafa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin xaasabuu anfusahum fi dunya wainamaa shaqa alxisaabu yowma alqiyaamati calaa qowmin lam yuxaasibuu anfusahum fi dunya dadka qaarkood xisaabtu aakhiro way u fududaatay markay iyagu adduunyadiisa soo xisaabiyeen qaarna way ku adkaatay markay iyaguse soo xisaabin waayeen adduunkii iyagoo gebgebleh ilaahay oo hor yimaadeen markuu qofku naftiisa xisaabiyo saddex arrimood buu ka dhaxlaa inuu ceebtiisa garto iyo inuu ilaahay ka cabsado iyo inuu jannada ku guulaysto waxaynu ku diyaar garoobaynaa shanaad alisticdaadu bilusuumi alistiqaama waa inaynu tubtii toosnayd ee aynu ka baydhbaydhayna islaamka iyo diinta aynu naftii ku hagaajinaa istiqaamadoo la kordhiyo istiqaamada waxa weeye hadafkaaga iyo muraadkaaga iyo meeshii yoolkaagu ahaa aada ku socotay oo aanaad ka baydhbaydhin tusaale haddaynu soo qaadanno maalan qof baa waxaa la yidhi waxaad la kulmaysaa boqor hebel magaalo heblaaye ayuu joogaa halkaasuu kugu casuumayaa waddada loo maraano waa taa xaadhan ee halkaa cadee furan inta raaxada kaaga hadhay waa intaad isaga gaadhayso intaa waad si yaraha raadi xoogaa bacadaad la sii kulmi laakiin markaad isaga gaadho
markaasaad wax walba iska dhigto rafaada. boqorkaasi waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. magaalada uu kugu casuumayaana waa jannada, dariiqan aad maraysaana waa kii islaamka. haddaba haddii steerinkaaga intood qabato aad ku hagaajiso waddadaa oo si fiican aad u hayso, ilaahay baad hoos geliyaad gaari doontaa, isna gacantu ku qabano casuumaddu ku geyn. hadduu gaadhigu kula taraaro oo marna waddada uu xaggaa uga baxo marna uu xaggaa uga baxo, haadaan unbad ka dhacaysa. dadkaa waddada laga soo qaadayo iyaga iyo baabuurtoodii burburay ee boholaha ku dhacay ayuumaad la mid noqonaysa. idan istiqaamada macnaheedu markaynu tusaale la fahmi kara ka soo qaadanno waa steerinkaaga inaad ku hagaajiso jidka cad ee jannada iyo ilaahay raali noqoshiisa loo mara islaamka la idhaah. wa anna haadaa siraatii mustaqiiman. waxaynu ku diyaar garoobaynaa isticdaad biطahaarati اlqalb, qalbiga inaynu nadiifino. qalbigii wax badan buu wasakhoobay, shaydaan baa burushkiisii ku wada, bani aadamkii uu dabada ka soo riixay baa habeen iyo maalin bay saysataanoo naxli iyo nacaybshiiyo ayaa intaa habeen walba aad ku seexanaysa, aad ku fikiraysaa. qalbiga si dhinkaa ku dallacan ama culayskaa haysta ee waxa aynu sheegayna ka soo gaadhay inaynu ka masaxno, aynu ka dabcino, waxaynu ku heli karaynaa raaxada cibaadada iyo ka bogashadeeda. ilaahay baa inala hadla wuxu uhi alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum, miyaydaan jeclayn inaan idiin dhaafo, inuu ilaahay dembiga idiin dhaafto, idinkuna dadka iska dhaafa. khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin. waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikitaabati alwasiya, inaynu dardaarankeenna sii qorno. haysodhanin rabadaan maasha allah way sii dhowdahay, raashinka iyo alaabta iyo waxaasoo dhan iska diyaarso, waad gaadhayo waad soomiyo kanaad samayn doonta. dib u waraysa rabadaanadii inaga horreeyey. imise qof oo ciidda diyaar u ah ama inay soomaan diyaar u aha ayaynu aasnayba cisho ka hor, 2 cisho ka hor, maalin markuu sii soomay. ha ku talagelin waxaad og tahay ma ahee wakhtigaad gaadhaysa kuu noqonayo. marka dardaarankaaga iska qoroo ha kuu diyaarsanaado, siduu nebi maxamed inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam. dardaarankoo la qoraa waxay sheegaysaa qofku inuu diyaar yahay. haddaana dardaaranka qorinna waxay sheegaysaa inaad weli dhagoolaynayso waxa kaa horeeya aanu dhab kula ahayn. marka xaqiiqada dhabtaa loogu soo noqdo, qofku wixii aanu huraynin horu u yeelaa. saa daraaddeed kol haddaad geerida aaminsantaad ku qanacsan tahay, dardaarankaaga waa iska qornaado. wixii adiga kaa dayacmi lahaana qor, ila dad baa kugu xidhane. wixii kugu dayacmi lahaayee dad ka lumi lahaana ama ilaahay xaqiisee lumi lahaana qor. markaasaad aaminsan tahay inaad allaysanaysaad aakhiro ku jahaysanta. dadkan dhimashada isilowsiinaya ee qofka dhintay inay geeridu isaga keligii un ku gooni tahay ka soo qaadaya waa qaflah, ka dhacsanaan xagga nolosha weeye xaqiiqada. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa: maa xaqu mri'in muslim lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih yabiitu laylatayni ilaa wasiyatuhu maktuubatun cindah. ma habboona buu ihi qofku hadduu shay uu dardaarmayaa jiro inuu 2 habeen seexdo isagoo bilaa dardaarana. xallo wixii xuquuqa, waxa la yaalo wixii mudan in wax laga sheego, diin iyo dunyaba iska qor. oo arrimaha inagu adag bay ka mid aynu haysanaba. hadduu qofku dardaaranka qoro malaa inay geeridu kusoo degdegayso oo cimrigiisa iyo calafkiisa lasoo gaabinayo. waxaynu ku diyaar garoobaynaa bikahrati dikr, xuska ilaahay inaynu badinno subxaanahu wa tacaala. xuska ilaahay inaynu badinno, oo xuska ilaahay wuxuu sheegayaa socodkaaga inuu faas ka dhigo. dariiqii aynu sheegayna la marayay, sbiidkaaga iyo orodkaaga waxaa kordhinaya ilaahay xaggiisa aada u ordayso ama jannada aada u ordayso waa dikrigan iyo xuska. safar haddii lagu jiro waa la tartamaa, gaadiidleydaa tartamo, nin waliba gaadhi wanaagsan iyo wakhti wanaagsan iyo shidaal wanaagsan buu soo qaataa si wakhti hore uu gaadho meeshii uu ku socday. marka jidkaynu marayno waxyaabaha orodkiisa kuu kordhinaya dikrigaa ka mid a, siduu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa: sabaqa almufariduun, nimanka dikri yaqaanka ah ee daakiriinta ahi cid walba way ka dheereeyeen. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sirtaa qiimaha badan waxay ka qaadan jireen rasuulkooda. waxaa ku sugan saxiixa, waxaa u soo cawday nebiga asxaabtii fuqarada ahaa ee dhaqaalahoodu yaraan waxba badan haynin ama aan waxbaba haynin. xaasidiin ma aha, laakiin khayrkay jecel yihiin ee walaalahooda kula tartamayaan.
waxay idhaahdeen dahaba ahlu duhuuri اlujuur calaa macnaa qowli dadkii maalqabeenka ahaa wax alla wixii ajri ahaaba iyagaa isku fuuqsadayba intaanu samayno soon iyo salaad iyo intan oo dhanna way sameeyaa dee wixii xoolo laga bixin jirayna way ka bixiyaan annaguna waxba ma hayno waa calaancalay maxaanu yeellaa nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka kubaddiisiibuu usoo dhigay si qurux badan si ay u laadaan oo wuxuu idhi waxa aan idiin sheegayaa buu idhi oo aan idiin warramayaa sir baan idiin sheegayaa shay baa samaynaysaan marka aa fashaan ee arrinkaa camalkaa qabataan cid idin gaadhi mayso kii idinka horreeyeyna waa gaadhaysa ilaa cid intaa aad samayseen samayso oo kale mooyaane waxaana ugu khayr badanaysaan cidda aad dhex joogtaan wa kuntum khayra man antum bayna dahraanay cidda dhex joogtaana idinkaa ugu khayr badan cidina idin gaadhi maysa kii idinka horreyna waa gaadhaysa تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله في خلف أو في دبر كل صلاة صلاة الدبادة ودون ذكر كده ذالب وإنت لين أخرين بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر بلاك أنت ضدك السميسة ويرت السلام عليكم مرك الله هذا وإربدي سيكو كل فنا يا مصبار كيسي الشيطان تبتناها ليروه قفك يجيا مهردي لك سويس قبل باب بنان كتاجن بل كجارسي هرايبو عرّي قفك أنت يرى الله بدقيقة من لها ما هل دقيقة inuu 99ka iyo markaa boqolaad inta israaciyo way ku adagtay way adagtay waayo waa lagu heliyaa way ku sahlanaan lahayd laakiin waa kaliga baan ahayn inta sadadoo dhan kaga dheeraynaysa waa kii markaa nabiga haddana u soo cawday walaalahay intii maqleeno way sameeyeen de waa fadli ilaahay buu dhaqaalaha fiicaniye u haneey waxaynu ku diyaar garoobaynaa al-isti'daad bit-taqwa inaynu alla ka cabsigeeni aynu sanadka ciirciirka ku dhacay aynu kordhino alla ka cabsiguna wax weyn weeye quraanku waxa ugu badan u dardaarma ama diinteen waa la ka cabsiga 258 aayadood ama eray baa ku soo noqonaya lafdu taqwa quraanka dhexdiisa qiimuhu eraygaasi leeyahay ama camalkaasi leeyahay bay ina bar ayuu quraanku ina baraya waayo waa sahayda u qaalisan ee adduunkan lagala tago alla ka cabsigu dadka iyo dunyada iyo daaro way iska hadhayaan laakiin alla ka cabsigaas hay noqonaya watazawadu fa inna khayra zaadi taqwa aqbalka iyo ijaabada camalkan aynu sameeynayna haba badnaadee wuxuu ku xidhan yahay oo tayadiisa sal oo ah alla ka cabsiga inama yataqabbalu Allahu min almuttaqiin min shaacirada waxa uu tazawad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-ghadi فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري الله كعبسك الصحيح قال ما أوجد مركو هبينكم بدو بعد إن صبحي أتجاري دونت إمسان إن اللي يراه عمره جوع صبي هاي واجو بريء وقبل كل عيسى قصليه كفنتي سين اللي تلا يون أوجين أصحابته رضوان الله عليهم وحيابها يدتك كوع عدي جيران aad ugu baraarujin jireen waxa kamida alla ka cabsiga uu dikrigu quraanku aad inoogu baraarujinay iyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam qaladay ka tageen alla ka cabsiga ku saabsan saxaabada iyo salafka oo dhaxal gala wadaad akhrida aad iyo aad u saameynaya qalbigaaga Abdullah ibn Mas'ud waxa uu lahaa at-taqwa an yutaa'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar ويذكر فلا ينسى الله كعبسك waxa weeye in ilaahay laga amar qaato oo aan lagu gacan sayrin in ilaahay la xusuusnaado aan la ilaawin in loo mahadnaqo oo aan la dafirin ilaahay nicmadiisa subhanahu wa ta'ala Ali ibn Abi Talib waxa uu lahaa at-taqwa al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wash-shukr bil-qalil wal-isti'dad li yawm ar-rahil الله كعبسي وحوي إلهي قلبك كجرة وأن كم مغنانين أديك وحيجي سكو عمل فلا وحي يرى وكسيين كم هذا قول سلوجين قيامها أنا وديار قرابة أما قال الله بركيسا أرنتي شيء قلب النول إنه كصاب حياة وقدام بينتي قلب كتبنا هذا إن كنت ديار قرابة إنه وحوي الاستعداد لرمضان بالتوبة إلى الله إنه إلهي وتوبت كان ينوصل نقول سبحانه وتعالى توبتنا وحوي inaad garawshiya bixiso adoon yar inaad tahay oo dhacdhiciisa iyo gafkiisa iyo simbirxadiisu ay badan yihiin
وأن إلهي وينا وينين ونغحشون سيدي مناسب كاهيد وما قدر الله حق قدره sidaa daraaddeed goor walba garawshiya bixinaya oo ilaahay ku laabanaya oo ilaahay hoos taagan oo ceebtiisa qiranaya taasaa lagugu dembi dhaafaya oo goor walba ka warwaraya wixii qallooc iyo qaladaad ee ka yimid alla ka cabsiguna waxa weeye wadada loo maro aan idhaahdee dembi dhaafku ama istikfaarta ama towbaduna waa wadada loo maro jannada horay baad ka sii qaadanaysaa miftaaxii jannada weeye إلهي بقى وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين دنب داف ودق دقا مركا قادتان شنادا مفتاح يديد النقونا يهرو قاريسان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إساقنا استغفارت وردقيس يومي قد شوك تدابها هذا ضغو إسقن عسي أما عمل كاقا قالي وأركته أما آد إسعاد شبيسي yay taasi ku naftiya shaydaanku yay sidaa kaaga faa'iideysanin rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu casharo inoo dhigayaa wuxuu leeyahay maalintii walba astaghfirullah fil yawmi 100 marra boqol jeer baan astaghfirullah wa atuubu ilay adigu inta tiraahdaa intaad xusuusataaba horta istighfar wada ordaysaawne intaad ka xuntahay dambigaad samaysay inteebuu kula weeyahay amalkaad samaysay wax la yaab badan weeyo waliba marka aakhiru umri qofku uu joogo umri qaalibkii ama uu ku sii dhawaado waanu istighfaartiisu korodhaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu geeridii soo dhawaatay istighfaartu aad u badinayay Aisha haday weydiisayna wuxuu nabigu ku jawaabay ilaahay wuxuu ummadda iga siiyay calaamada markan ka arko waxa sheegaysaa in umrigaygu uu soo dhawaaday sida daraadeed ama geeridaydu soo dhawaatay istighfaartan badinaya ومعناها الشيء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا استغفارت هي توبة اسكدر أمريكا جبدي سواء تان نقطة مركب طبعا كاشيء هذين السمينو وحلقة يا باين قلبي جاي نستفوابه عمل كأينو كوتش هاي سنة هاي قيمها بدنا أينو واحد بدن كقبسن كرنه فرصتنا أين ضيعين وهذا ما أقوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا برمضان بأمن وإيمان وسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم